بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركه هره وحام هذا إسكاله الله سبحانه وتعالى. مركه حبته وحام هذا إسكاله أصحابتي أنا كحرن يوتيوب channel كنا تلوين عفمات iyo Facebook page كنا تلوين عفمات دمان وايد سلامي موقال كان وحو كسابسن yahay cudurka loo yaqaano jabtada ayuu ku saabsan yahay insha Allah ama cudurka la yiraahdo gonorrhea ayuu ku saabsan yahay insha Allah waxaan sharxi doonaa waxyaabo badan oo ku saabsan cudurkaas ayaan sharxi doonaa insha Allah inta aan u gudgalin muuqaalkeena waxaan ka codsanayaa inaad YouTube channel-keena subscribe noo saarto Facebook page-keena follow ah soo tiraahdo insha Allah wixii su'aalaha oo aad qabtaan qaybta hoose commenting noogu dhaaf oo ku soo jawaabi doonaa insha Allah muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay cudurka loo yaqaano jabtada ayaan ka hadli doonaa insha Allah jabtada waa mid ka mid ah caabuqyada ku faafo galmada ama cudurada loo yaqaan sexual transmitted disease waa mid ka mid ah caabuqyada halista ah ee ku faafo galmada wuxuuna saameeyaa rag iyo dumar intaba waa saameeyaa cudurkan inta badan dadka qaba cudurkan wax calaamadaha ma ka soo muuqdaan laakiin dadka qaar waxaa lagu arkaa calaamado ayaa lagu arkaa calaamadaha inta badan waxay ka soo muuqdaan xubnaha taranka ayay ka soo muuqdaan meelaha si gaarka ah cudurkan u saameeya ee jirka ama qeybaha jirka ee cudurkan saameeya waxaa ka mid ah kaadi mareenka ayaa ka mid ah ama tubada kaadida soo saarto ama tubada kaadida dibadda u soo saarta ayaa ka mid ah sidoo kale waxaa ka mid ah qaybta hoose ee madhacyarada ayaa ka mid ah ama meesha saxarada ka soo baxda ayaa ka mid ah sidoo kale cudurkan wuxuu saameeyaa cunaha ayuu saameeyaa sidoo kale cudurkan dumarka wuxuu ka saameeyaa waxa loo yaqaano afka horeeminka ama meesha loo yaqaano cervix-ka ayuu ka saameeyaa inta badan cudurkan waa mid ka mid ah cudurada halista badan ee ku faafo galmada ayuu ku faafaa haddaba calaamadaha ragga ka soo muuqdo ama calaamadaha ragga cudurkan qaba ka soo muuqdo waxaa ka mid ah calaamadaha soo muuqdo waxaa ka mid ah calaamada koowaad ee ragga ka soo muuqdo waa in ay dareemaan xanuun xilliga kaadida inay dareemaan xanuun ayaa dhacdo sidoo kale calaamadaha la arko waxaa ka mid ah in dhacaan ka yimaado ama malax inay ka timaado xubinta taranka ragga sidoo kale calaamadaha la arko waxaa ka mid ah in xaniinyaha bararo kadibna ay dareemaan xanuun iyo barar isla socda oo ah xaniinyaha inay dareemaan sidoo kale calaamadaha dumarka ka soo muuqdo ama dumarka qaba calaamadaha ka soo muuqdo cudurkan waxaa ka mid ah in qoyaanka xubinta taranka dumarka aad u bato ayaa dhacdo sidoo kale waxaa dhacdo xanuun la socdo kaadida ayaa dhacdo sidoo kale calaamadaha dumarka lagu arko waxaa ka mid ah in dhiig bax yimaado galmada kadib ayaa la arkaa inta badan sidoo kale waxaa la arkaa waqtiyo aan ahayn xilliga caadada in dumarka dhiig ka yimaado ayaa la arkaa sidoo kale calaamadaha dumarka qaba cudurkan lagu arko waxaa ka mid ah xanuun qeybaha hoose caloosha in xanuun ay ka dareemaan haddaba maxaa sababa cudurkan marka cudurkan waa mid ka mid ah cudurada ku faafo galmada waxaana sababo nooc bacteria ah taas oo loo yaqaano Neisseria gonorrhea ayaa la yiraahdaa Neisseria gonorrhea ayaa la yiraahdaa waa nooc bacteria oo cudurkan sababto haddaba sidee looga hortagaa marka cudurkan kaliya waxaa looga hortagi karaa in laga fogaado galmada xaaraanta ama galmada aan safe ka ahayn waxaa wanaagsan qofka inuu ka fogaado galmada ayaa wanaagsan maadaama cudurkan yaa cudur ku faafo galmada waxaa markasta wanaagsan in qofka ka fogaado galmada xaaraanta ama galmada aan safe ka ahayn oo badbaadada ahayn inuu ka fogaado ayaa wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh